intay qaybihii ugu muhiimsanaa la duqeeyey masaajidadii la duqeeyey meel kasta oo dadka kan adeeg guud loogu qabanayay la duqeeyey runtii oo ahayd arrin aad waxyeelo dalka iyo dadka ugu ah maalintii afraad mar labaad markii ay beesha caalamku ka hadashay dhibka loo geystay deegaanka iyo dadka wasaaradda arrimaha dibadda waxay soo saartay statement cusub oo ay ku dhaleecaynayso bulshada caalamka oo ay leedahay bulshada caalamku waxay misliir garaynaysaa oo ay si khaldan uga hadlaysaa arrimaha ka socda gobolka Sool waxayna wararka ka qaadataa ilaa aan xogogaa lahayn iyo arrinta maanta laascanood ka taagan inay noqoto arrin caalami ah aanay ahayn arrin loo kale cid walba ay ka warhayso iyadoo ay yimaadeen dad ka socda saxaafadda caalamiga ay yimaadeen dad ka socda hay'adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah oo runtii xogogaal u ah waxa halka kan ka dhacaya iyadoo ay ku barakaceen dad 200 oo kun oo qof gaaraya oo ay tuba daadsan yihiin ilaa iyo dowlad deegaanka Soomaalida Puntland iyo dhammaan deegaanada gobolka iyo deegaanka ka kooban yahay runtii waxay ka bilaabantay arrintaas oo isleeyahay waxa dhacay dambiye dagaal oo ka bilaabmay 27 December markii dad shacab ah oo mudaharaadaya oo aan dhib geysan loo adeegsaday ciidamada militariga oo isleeyahay tallaabada koowaad waxa dambigeeda qaadanaya gudoomiyihii gobolka markaa joogay iyo taliyihii aaga Cali Barre labadaas qaadanay aan isleeyahay kadibna waxa xigtay duqeyntii bilaabantay maalintii labaad ee dagaalka oo wasiirka arrimaha gudaha anigoo gudoomiyihii golaha baarlamaanka ah oo jooga oo ku sugan magaalada Laascaanood ay wasiirka arrimaha gudaha iyo waftigii la socday iyo taliyihii ciidanka militarigu ay magaalada bamgarayn aan loo aabayeelin ay ku sameeyeen waxaan isleeyahay waxaa qayb weyn ka qaatay arrinta iyada ah oo doonisteeda iska lahaa oo hoggaan u ahaa madaxweynaha oo ah taliyaha guud ee ciidanka oo mar walba amarka dagaalku cidda uu ka soo fulay ahayd waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo wax kasta oo la isku dayay oo nabad ah inuu madaxweynuhu buriyay isagu tusaale ahaan markii ay tii hore jabtay waxaanu European Union ka isla qaadanay in salaadiinta goboladaas galbeedka jira ay arrinta tan soo dhex galaan iyaga oo ku